Genaraal Cabdi Cali Siyaad oo hadda loo dallacsiiyay taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu ahaa taliyihii brigade-ka ama guutada labaad ee ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida oo xaruntiisu tahay gobolka Hirar. waxa uu si weyn ula dagaalamay ururka argagixisada ee Al-Shabaab kuwaas oo isku dayay inay galaan buuraleyda aagga Ceel Karri. waxaana guutada uu xukumayay si weyn wax uga qabatay isku dhacyada qabaa'ilada ee 22 degmo ee brigade-ka ama guutada labaad ka howlgasho, taasi oo howlo adag laga sameeyay. waxaana lagu guuleystay in la dabar gooyo isku dhaca qabaa'ilada, taasi oo ciidanka xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan guutada labaad ee uu taliyaha ka ahaa ay door weyn ku lahaayeen. ciidanku wuxuu si weyn wax uga qabtay kontarobaanka deegaanka soo gala iyo hubka sharci darrada ah iyo waxyaabaha sicir bararka keeni karaya si loo yareeyo sicir bararka iyadoo laga hortagayo waxyaabaha deegaanka ka baxaya ee daruuriga ah isla markaasina sicir bararka keeni karaya. xeelado iyo tabab wanaagsan uu adeegsaday ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka ayaa lagu guuleystay in muddo kooban lagu soo afjaro argagixisada. waa taliye khibrad sare u leh tabaha iyo xeeladaha ciidannimo. hadda wuxuu bedelayaa taliyihii hore Genaraal Maxamed Axmed oo intii uu taliyaha ahaa shaqooyin adag ka qabtay xilli adag oo kala guur ahna ku soo hagaagay.